أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Saraar ee kuwa degmada Caynaba ay u heliyeen qaar ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Saraar ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu furayay masjidka Dawsari oo laga hirgeliyay magaalada Caynaba. waxaana dhismaha masjidkan Dawsari hirgeliyay muxsin jooga dalka dibadiisa iyadoo dhulka laga dhisayna ay waqaf u bixiyeen awlaadii u dhalay Allah u naxariistay Salabaan Aadan. waxaana uu horeenba furitaanka masjidka Dawsari ka hadlay maamulaha masjidkaasi Sheekh Salaad Rooble Cabdi iyo Bashir Salabaan Aadan oo kamid ah awlaadii u dhalay Allah u naxariistay Salabaan Aadan kuwaas oo dhulka laga dhisay masjidkan u bixiyay waqaf. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barisaab ku-xigeenka gobolka Saraar Maxamuud Wasame Geedi Hilbayare, maayirka magaalada Caynaba Maxamed Heebe Maxamuud, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Caynaba Umar Maxamuud Muuse, isduwaha hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka gobolka Saraar Maxamed Daahir Cabdi, Caaqil Ibraahim Bulshaare, Sheekul Beledka magaalada Caynaba Sheekh Maxamed Shirad Daqare, culimaadudiin iyo mas'uuliyiin kale. waxaana dhammaantoodba ay mas'uuliyiintani ay u mahadnaqeen isla markaana u duceeyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta masjidka Dawsari. Salabaan علم سعيد عاتية ورك قبل كسرار. أنت أكيد أنا يقول الله مجا دمان أفكار المسألة بين آذان ونهال كان قاعدين إنه إننا وقفنا مساجد كان ونوقفنا أبوها يا الله سبحانه وتعالى هون حريسته نقول خاصة لما يستغن شنبلاد أيانو عدينا ومساجد كانوا بحنا أنت هسه حنقدر إياه dhammaan culimadana waxaan ka codsanayaa iyo dhammaan wax garadka waa inay u duceeyaan Aabaha Allah subhanahu wa ta'ala uu naxariistay. sidoo kalena waxaan cadeynaynaa masaajidka wixii uu baahan yahay dayactir iyo ka warhaynba inaanu ka qayb qaadan doono insha Allah ta'ala. marka labaad horta masaajidkan waxa weeyaan dhulkiisa waxa baxsaday sida loo sheegay Salabaan Aadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto oo Bashir iyo Nicmo inagala joogan maanta oo labaduba wax weeyaan shaqo aad iyo aad u adag ay ka qabteen. waxa kale oo reerkooda dhammaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u baryeynaa inuu Ilaahay barakeeyo markay jagada bixiyeen odayga sii bixiyo kula dardaarmay inuu markaa dhulka waqaf u bixin doono iyana way ajiibeen sidii way u bixiyeen. waliba inta kaga may hadhine Hargeysa uga yimaadeen qaarkood oo ninka loo yaqaan Cabdiqani waxa weeyaan dawladda hoose Ilaahay barakeeyo dawladda hoosena iyo maayirka iyo maayirka xigeenka iyo shaqaalaha si hagar la'aan bay uga shaqeyn iyaguna markii dhulka waxa weeye siisii wayna la joogeen marka isaguna halkaas uga soo safro u yimi nimcana halkan ka hogaaminaysay waliba qarashna way ku darsadeen masaajidka oo waxay ku bixiyeen. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaa Salabaan Aadan iyo reer Salabaan Aadan bay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyo Salabaan jannatul firdaws Ilaahay subhanahu wa ta'ala u geeyo nabaalka weyn waxa uu leeyahay waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka baryeena waliba qof kasta ku takada masaajidkana ay waxa ajirkiisa uu leeyahay saasoo Ilaahay u rajeenina. waxaan kaloo masaajidkan dhismihiisa dhisay nin Carab oo Sheekh Carab la yiraahdo waxa weeye Abdul Haadi isaguna waxa weeyaan soo maray waxa weeyaan nin loo yaqaan waxa weeyaan Sahal Mahdi oo gadar jooga Sahal baan wakiil ugu ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo isagana waxa leen badan buu ka qayb qaatay oo soo diritaanka lacagta la soo diriyay oo dawladda lacagta ku adagtay in badan buu lugeynayay iyadoo waxa weeye Ilaahay dirtu u shaqeynayo isagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uga baryeynaa miisaanka xasanadka u saaro. masjid Dawsari Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu uga baryeynaa sida Allah inoo sheegay laynaga codsaday in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu miisaanka xasanadka ugu daro reer Salabaan Aadan oo inaga hooseeyana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu uga baryeynaa jannatul firdaws Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku casuumo Ilaahay qabriga uu waasiciyo Ilaahay qabriga uu nuuro Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiisana uu dhaafo xasanaadka uu socdana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu taam yeelo. sheekha la soo baxay halkan maanta bogcadan barakaysan ee lagu tukanayana sheekhii la soo baxayna Ilaahay waxaan uga baryeynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala fi aakhiraba inuu Ilaahay liibaaniyo. ووقف إذا لبح ذي هذا مسات دسمي هاي هذا لك التعيبة إذا لبح ذي أو مال لو باهي بدني هاي ولبح ذي مد دنتين مد نالبا
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ujeedadeeda u fuliyo ka dhintayna qabriga ugu waasiciyo masaajidka waxaan intaa ku daraynaa dadka deriska masaajidka u soo kordhay oo jamicii iyo cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu markaa deris uga dhigo jaar uga dhigay haddii masaajidka oo cidlo ah ama jamicu ka yar yahay hadduu iska dhaafo sax maaha waa inuu masaajidkan camiro kana xaq u leh allahu tacaala waa maalin fadli badan waxaan u ducaynaynaa hadda meesha hadal ma hadhin kii soo baxsaday ee lacagta soo bixiyey iyo kii dhulka bixiyey labadaba ilaahay waxaanu uga baryaynaa mid walba xasanaadka miisaanka inuu wuxuu doonayo u saaro baan labadaba ilaahay uga baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka lacagta soo bixiyey halkan ka dhisa guriga qurux badanna waxaan leenahay wuxuu doonayo ajar hadduu isagu dhisanayay hadduu waalid ku dhisanayaba ilaahay inuu maaragtay buuraga dhigo kuwa dhulka bixiyey ee iyana doonaya aabbahoodu bixiyey waqaf ka dhigana waxaan uga baryaynaa inay iyagana maaragtay ajar buuraa uga dhigo aynu ducaynaynaa shiikha carabka ah gadariga ee ka soo waqafsaday iyo sahal mahdi maxamed warsame oo soo dhexmariyey labadaba waxay leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay haydin saaro wixii dembiga lahaydan ilaahay kaga sawaabiyo waxaynu kala ducaynaynaa salebaan aadan qoyskiisa oo dhulka la baxay salebaan aadan way dhintay waynu ognahay ilaahay waxaynu weydiinaynaa inuu qabriga u waasiciyo meelihii ugu wanaagsanaa oo baytullaahiga ah sidoo kale sida runtii waxaynu isna waxa weeye ilaahay uga baryeen in miisaanka xasanaadka u saaro sheekhan ku soo tabarucay ee soo bixiyay inuu waqafka ula baxo masjidkan sheekh dawsari asagana waxaan ilaahay uga baryeen miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro sidoo kale waxaan u ducaynaynaa saaxiibkay Salebaan Aadan Cali oo runtii maanta inaga hooseeya in ilaahay isna jannooyinkiisa ku casuumo waynu ducaynaynaa waxaan u ducaynaynaa dadka reer Salebaan ismkooda ku bixiyay dhulkan iyo sheekha dhisay runtii way meelaha fog ka yimi iyo cidda soo jilaabtayba waxaan leenahay ilaahay idinku casuumo ajirkeeda ilaahay idin siiyo kulligiinba qodobkaas yar dultaagaya waxa weeye kullayba masaajidadeenu waa badan yihiin markay bataanna kolley waxa weeye waxay u baahan yihiin ilaalin iyo haddii allaba kuu rooyay iyo ka warrayn bay u baahan yihiin waxa weeyaan masaajidadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waxay ahaayeen sida hosbitaalada ayay u shaqayn jireen oo hosbitaalada wada aragteen oo 24 saacadood adeeg baa ka socda subaxii galabtii habeenkii casarkii 24 saacadood la soo dhaafi jiray waxa weeyaan adeeg baa ka socday marka wuxuu baan yara dul istaagayaa qodobkii macallimiinteedii Allah sharfay daahir iyo Salebaan iyo runtii ay iftiimiyeen ee ahaa in masaajidada adeegaas uu noqdo adeeg ka socda oo haddii ay tahay marka akhlaaqiyadkii caruurta iyo haddii ay tahay macaamadihii iyo haddii ay tahay dacwadii la fidinayay iyo haddii ay tahay wixii kale runtii diiniyan runtii iyo dunyaaniyan bayna anfacaya in marka adeegaas uu noqdo meel bulshadii il u ah oo acmaasha noocaas ee faraha badan leh runtii ay ka nooshahay oo ay ka soconayso oo marka madaxda gobolka iyo degmada iyo bulshada qaybaheeda kala gaduwan ay kala soo qayb galaan oo ay jiibaan ayaan iyaguna insha Allah taala wadaadada iyaga nooga cilmi badan ee xasuusinayaan waa intaas kelmadaydu Allah barakeeyo Allah barakeeyo Allah barakeeyo cilmadeena mar walba salaaka dib halkan waa madal masaajid waa masaajid waqfa ilaahay kuwii bixiyay dhismihiisa soo bixiyay ee inta soo mariyay ilaahay khayrka ilaahay ka doonayaan has ilaahay ka siiyo hawsiyaadiyo kuwa dhulka bixiyay ee aabahoodu la niyooday ilaahay ajar siyaada iyo mid badan iyo mid uu cidhiidhiga kaga baxo ilaahay ha ka siiyo dhammaantiin ilaahay ha inoo wada naxariisto ilaahay dembigeennana ha dhaafo intaa waxaan ku darayaa masaajidadu malaakan waa kii dhowr iyo tobnaad masaajidada dee madax bay leeyihiin oo culimmada u madaxa jadwalka iyagaa laga rabaa inaan masaajidna cidla noqon ee masaajid walba cidda uu ku dhow uu xil ku hayaaye ay cidda uu ku dhow yahay camiraan xagga waxbarashada jadwal wareego oo marba masaajid wax laga barto halkuu joogaa casharka soconaya loogu tegayaa taana culimmadu
ha u qaybso maalinta masaajidkaasa waxbarashada tafsiirka halkaasaa laga marinaya bukhaariga halkaasaa laga marinaya riyaadka halkaasaa laga marinaya masaajidka cidda yar dee waa in la siiyaa maalin la siiyaa leedaa xusnul mubaarak waxa laga marinaya halkaa